warbaahinta ka faallowta bariga dhexe waxay si weyn u faallaynaysaa natiijada laga filan karo qorshaha nabadeed ee uu shalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaga dhawaaqay aqalka cad. Qorshahan oo ka kooban 20 qodob oo lagu soo afjarayo dagaalka dabada dheeraaday ee Gaza ayuu Donald Trump sheegay inuu isagu hogaamin doono guddi fulintiisa u xilsaaran kaasoo ka koobnaan doona madax carbeed, qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha kale ee dalalka Islaamka iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair. Qorshe nabadeedka la isweydiinayo natiijada dhaqangalkiisa waxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan: in Gaza laga dhigo mid argagixisanimada xorka ah aan halis ku ahayn dariskeeda, in Gaza dib loo dhiso taa oo u adeegaysa rayidka magaaladan ee dhibaatadu ku raagtay. Qorshaha waxaa lagu yiri haddii dhinacyadu isku raacaan qorshe nabadeedkan, isla markaaba dagaalka waa la joojin doonaa, waxaana 72 saacadood gudahood lagu sii dayn doonaa guud ahaan maxaabiista labada dhinac. Qodobkan oo tilmaamay in Israel sii dayn doonto 250 maxbuus oo dil toogasho ku xukuman iyo 1700 oo rayidka Gaza, haween iyo carruur isugu jira ee Israel qabatay ilaa 7 Oktoobar 2023 waa markii dagaalka dabada dheeraaday curtay. Qodob qorsheedka kale ee saameynta leh waxaa ka mid ah in Falastiin loo dhisi doono maamul ku meel gaar ah ka oo ay hogaamin doonaan Falastiiniyiin khibrad maamul leh iyo khuburo caalami ah, kuwa oo ay iyana korjoogtayn doonaan guddi kale oo ku meel gaar ah, midka oo ka koobnaan doona isla guddiga nabadeed ee Trump hogaaminayo. Ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair iyo xubno ka mid ah madaxda dalalka ka mid ah guddiga nabadeed. Dhinacyadan oo ka shaqayn doona arrimo ku kooban bixinta adeegyada aasaasiga ah, dib u dhiska Gaza iyo nolosha Falastiiniyiinta. Waxaana qorshahan lagu sheegay in dhinacyadani shaqadan sii wadi doonaan ilaa Falastiiniyiintu isku filaadaan. Waa sida qodobada qorshe nabadeedka lagu yiri. Qodobada kale waxaa qayb ka ah in maamulka Falastiiniyiinta ee la dhisayo Xamaas saameyn ku yeelan doonin, in Xamaasiyiinta ogol inay dhulkooda isaga tagaan loo fududeyn doono safaradooda, iyo in la burburin doono difaacyada dhulka hoostiisa ah ee Gaza iyo guud ahaan hubka Xamaas. Degdeg u fasaxida gargaarka bulshada Gaza, dib u dhiska magaalada burburtay ee Gaza, dhismaha ciidamo caalami ah oo ka kooban dalalka Carbeed iyo wadamada kale ee Islaamka oo Falastiin ka howlgeli doona, isla goortaana ciidamo booliis u dhisi doona maamulka la yegleeli doono ee Falastiin, iyo in dhab loo hubiyo inaan Xamaas mustaqbalka dhibaateyn doonin. Qorshahan haddii lagu heshiiyo ayaa ka mid ah qodobada 20 gaara ee qorshahan, kaas oo aan weli la hubin sida uu ku dhaqangeli doono iyo in dhinaca Xamaas iyo maamulka Falastiin lafahaantoodu aqbali doonaan. Isla goorta qorshe nabadeedkan la shaaciyay, ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu isla goobta lagu shaaciyay ka sheegay inuu aqbalay dhinaciisa qorshe nabadeedkan oo uu sheegay inuu u heelinayo qorshahoodii dagaalka. Dhinaca kale, su'aalaha dul hoganaya qorshahan waxaa ka mid ah sababta aan heshiiska si dhab ah loogu xusin ka bixidda ciidamada Israel ee xuduudaha Falastiin ama Gaza. Sababta uu qorshahan qaybta uga yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair, sida Xamaas ugu qanci doonaan inay hubka dhigaan, saameyn aysan ku yeelan maamulka Falastiin, iyo soo jeedinta ah inay isaga baxaan Gaza haddii ay aqbalaanna loo fududeyn doono. Netanyahu waxa uu doonayaa inaan Xamaas iyo maamulka hadda jira ee Falastiin, waa kan Maxamuud Cabbaas, aysan wax luga ku yeelan karin qorshahan. Tan ayaana abuuraysa walaaca ugu weyn ee ah sida dhinacyada Falastiin qorshahan docdooda u aqbali doonaan.